بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. dhammaan waxaanu doonaynaa halkan waxaanu saaka saxaafadda isugu yeedhnay inaanu ka hadalno dhowr qodob oo saameyn ku leh habsocodka maamul iyo habsocodka siyaasadeed ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid. waxaa la isla dhex marayay ayaamahan oo xukuumadda iyo kulmiya ka dambeeyey oo suuqa soo geliyeen in iib ay geliyaan siyaasaddii wax la yidhaaho. annagoo xusbigii ka soconna waxa aanu beeninaynaa oo si cad u beeninaynaa arrimahaas wax ka jira inaanay jirin. xusbi mucaarida iyo xusbilxaakim caqliga ma gasho inay heshiis meel ku galaan. xusbi qaran in xusbi qaran loo dumiyo waxa weeyaa institutionskii qaran distorian xaaraan bay dee noqonaysaa. wax jiraaya maaha dee. waxaanu leenahay kulmiye tartan bay naga dhexeeyee dacaayadaha aad suuqa gelinaysaan joojiya. wadnayaasha u diyaargarooba tartanka. xusbiga ucid musharaxiisu waa jamaal cali xuseen. shirweynihiina waannu qabanaynaa haddii eebbe idmo uu ina gaadhsiiyey ilaahay bish lixdeeda. dhammaan taageerayaasha xusbiga ucid madaxda xusbiga ucid waxaannu ugu baaqaynaa inay ku midoobaan xusbigu sharciyan sidii way u hirgelin lahaayeen musharaxiintoodii maamulkooda. jamaal cali xuseen xusbiguu ka yahay musharax. xusbi mucaaridu musharax ka yahay. xusbiga ucid buu musharax ka yahay. kulmiye ninkaa askariga ee muuse bixe la yidhaah ayaa dee la yidhi musharax buu ku ciidan loogu qabtay dee musharaxnimadiisa. annaga ciidan looguma qaban dee musharaxnimada. arrinkaa waannu beeninaynaa. wax alla wax ka jiraana ma jirto. jamaallo shaksi maaha. xusbi 14 sannadood soo jiray ayuu dee musharax u yahay. ummad dhan oo dalka iyo dibaddiisaba joogta ayuu dee musharax u yahay. keli go'aan ma gaadhi kara dee. faysalla keligii dee go'aan ma gaadhi karo. xusbiga ayaa dee talada leh. waxa kale oo aan farriin halkan u marinayaa waaxda garsoorka. waaxda garsoorka waxaan leeyahay gaar ahaan garsoorayaasha maxkamadda sare distorigana ah xukun haddaa ka gaadheen xusbi qaran hay-ad qaranna aad tihiin xukunkiinnii waa inuu sidiisii u fulaa. haddii uu fuli waayo xukunkiinnu uu fuli waayo saamayn ayay idinku yeelanaysaa. waa in si dhaqsaana arrinkaa ay maxkamaddu xukunkeedii si uu u fulo tallaabadiisii sharci ayaannu uga fadhinaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.